السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتو السلام يا رمضان كريم مeel kasta aad joogtaan والله haddaad iga cusub tahay fadlan subscribe-ka iga ilaawin asxaabtaada la sii wadaag wixii fariinana commentiga nagu reeb muddo hadda laga joogo dhowr bilood waxaan channelka soo geliyey barnaamij ka sheekeynaya siduu qofku channel ku iman karaa iyadoo sharciya maaha tahriib laakiin sida sharciya runtii jawaabo badan baa ka imaaday iyo su-aalo badan arrinkaysaga ahaa maanta waxaa rabaa part 2 inaan kuu sheego insha allah runtii wadanka Germany mar kasta wuxuu daydayaa dad shaqaale u noqda shaqaalahaas oo ah shaqaale xirfad haysta sida loo socno Soomaaliya waxaa jooga dhakhaatiir aad iyo aad u badan dadkaasoo haysta shahaadooyinka jaamacadda dhakhtarnimo laakiin bila camal ah Soomaaliya waxaa jira dad aad iyo aad u badan oo IT aad iyo aad ugu takhasusay run ahaantii oo laakiin shaqo haynin okay haddii aad doonayso inaad timaado Jarmalka oo aad shahaadooyinka haysato dhakhtarnimada iyo shahaadooyinka IT aad bay kala duwan yihiin waxay doontaa noqoto haddii aad tahay qof IT professional Jarmalka ayaa lagaaga baahan yahay waxaan kugu hambalyeynaya qof kastoo IT-ga bartay oo IT professional ama app designer web designer wuxuu doonaa ha noqdo in qofku markuu Jarmal ka shaqeynayo aan u baahnayn xataa inuu luqadda Jarmalka barto laakiin ay muhiim tahay qofku inuu ku hadlo luqadda Englishka si perfect ah qofku hadduu medical yahay yani qof waxbarashada xagga caafimaadka ku takhasusay oo shahaadooyinkiisa haysta sidoo kalena aad buu muhiim ugu yahay Jarmalka hadaa xataa aanad aqoon luqadda Jarmalka luqadda Englishka ayaa dadka kula xiriiraysa habalyo haddii aad tahay qof IT professional haddii aad tahay sidoo kale qof medical worker ama qof ku takhasusay arrimaha caafimaadka wuxuu doonaa noqdo shahaadooyin haysta shaqeeyay khibrad leh halkan ayaa laga baahan yahay fadlan sida ugu dhaqsiyaha badan barnaamijkan adiga ay ku quseeyaa ee la soco haddaba maxaa sameyn karaa Jarmalku wuxuu u baahan yahay shaqooyinka qofka inuu yahay IT professional iyo medical workerska labadaas haddii aad tahay qof khibrad u leh Jarmalku wuxuu u baahan yahay okay haddaba waxaa jira waxa la German visa fadlan ku qor Google-ka German visa dabadeetana page kugu soo baxaa halka apply ku samee qofku markuu German visa sameynayo ama soo apply gareynayo maxaa laga rabaa qodobada laga rabo waxaa ka mid ah kow sawir ama passport ama sawirka kur sawira laba xaba waxaa laga rabaa baasaboorka Soomaaliga waxaa laga rabaa qofka hadduu wax kale oo cadeyna haysto sida liisanka gaariga oo kale waa muhiim ama ID waa muhiim qofku intaana horta waxyaalaha laga rabo salaam kale caafimaadkiisa waxaa laga rabaa warqadda shaqada yani qofku inuu marka ugu horeysa waxa fiican inta hadduu yahay inuu qof familkiisa oo Jarmalka jooga la soo xiriiro dabadeetana shahaadooyinkiisa iyo waxa khibradiisa intuu soo shaqeeyo dhan inuu soo diro qofka Jarmalka jooga dabadeetana qofka Jarmalka jooga uu raadiyo shaqo markuu qofku shaqo u raadiyo oo shaqo u helo dabadeetana oo qofka shaqada ugu raadinaya u sheegaya in qofkan shaqada loo raadinaya oo yahay qof khibrad leh laakiin uusan joogin wadanka uu joogo salaano kale Soomaaliya marka waxaa la sameynayaa qofka shaqaaleysiinaya ee chefkii markaas oo kale haddii uu khibradaas si degdeg loogu baahan yahay waxaa la sameynayaa waxaa lagu qorayaa warqad baa lagu qorayaa warqad sida u dhiganta contractiga shaqada oo kale contractiga shaqada yani uu ka yara duwan yahay maxaa yeelay contractiga shaqadu waa inuu qofku labada qof si face to face u fadhiistaan dabadeetana uu saxeexaa laakiin marka si video call qofka lagala hadalsiinaya sida ugu macquulsan weeyaan kadibna warqad sida contractiga shaqada oo kale ama wax la yiraahdo basic track oo kale ay lagu siinayaa qofku isagoo Soomaali joogo warqadda hadduu haysto run ahaantii 90% waa u fududahay inuu Jarmalka yimaado okay waxaad kala u baahan tahay codsi inaad codsi soo qorato
warqad caddaynaysa xirfadaada inta shanaad shaqaynaysay, shahaadooyinkaaga aad iyo aad baa loogu baahan shahaadooyinkaaga waxbarashada, haddii aad haysto bachelor, haddii aad haysto master, ama haddii aad PhD tahayba labada saddexdaba, iyo khibradaada inta sanaad shaqaynaysa. runaantii aad iyo aad iyo macquul u tahay qofkaasi inuu si easy ku yimaado Jarmalka fiisahana u helo. haddaba qofku markuu warqadahaas haysto wuxuu sameyn karaa? wuxuu sameyn karaa mar haddii uu qofku warqadaas uu helo shaqada oo qofka shaqaaleysiiyo, tusaale company hebel ay ku caddahay company hebel inuu shaqaaleysiiyey Maxamed ama Cumar ama Fahad oo Soomaaliya jooga, inuu shaqadaas offerkaas uu helay. runaantii waxaad u baahan tahay oo qura waxaan soo ilaabay qofku waa inuu haysta sidoo kale warqad caddaynaysa inuu dembi la-aan aanu dembi gelin. warqadaas waxaa laga soo qaadaa sidaan ognahay xarumaha CID-ga ama xarumaha dembi baadhista. marka intaad hayso waxaad sameynaysaa safaaradda kuugu dhow ee Jarmalka ayaad intaas applicationka u geynaysaa. qofku waxaan soo ilaabay qofku markuu helo warqadaas caddaynaysa in qofkaas la shaqaaleysiinayo, qofka familkaaga ama saaxiibkaaga wuxuu doonaha noqday Jarmalka kuu jooga la soo xiriiraysa, wuxuu sameynayaa warqadaas wuu qaadaya, wuxuu geynayaa qolooyinka caafimaadka ama kuwa xarumaha caafimaadka, caymiska caafimaadka, dadku caafimaadka ay jiraan wadankan. qof kasta waa inuu caafimaad ku jira, waa qasab sida salaadu qasabka noogu tahay oo kale. kadib wuxuu u geynayaa warqadaas, kadib waxay sameynayaan kuwa caafimaadku iyaguna bishayniguna ama warqad bay ku siinayaan caddaynaysa in iyaguna ay ku qaabili doonaan mar haddaad shaqo ka hesho. maxaa qof kastoo shaqeeya sheefka ayaa ka baxsha caafimaadkiisa lacag 150 euro ilaa 200 inta u dhaxaysa. haddii uu qofku haysto warqadda caafimaadka, kow inuu halkaa ka laga diiwaangelin doono. 2 warqadda caddaynaysa shaqo inuu helay. labadaa warqad qofku hadduu haysto ama labadaas bishaynigun, run ahaantii 99% hawshiisu isku fadhidaa. waxaad tegaysaa walaa safaaradda kuugu dhow insha Allah halkaad joogto ee Jarmalku leeyahay. haddii aad geli kartana dee sidaad ku geli karta ku gal, warqadahaaga oo dhan oo koobiya u gee, labadan warqadoodna 100% u gee. mar aliya markay safaaraddu insha Allah ay aragto warqadahan inaad chance haysto, safaaraddu sida caadiga ah qof kasta aba nasiibkiisa fiisa ku siinaysaa. dabadeetana muhiimaddu aan soo ilaawo waxay tahay inaad adreesna haysato. waa qasab qofkan kuu shaqeynaya waa inuu hawshaas oo dhan kuu dhameeyaa. adreeska isaga waa adrees ku noqon kartaa. anigoo aad saalan Guuled Cali Maxamed adrees waan ku siin karaa. qofka walaalkaaya ama qofka kuu shaqeynaya ama saaxiibkaas sidoo kale adrees buu ku siin karaa. wax aad u dhib badan maaha. wuxuu tegayaa company-ga ama shirkaddu kaga jira guriga, dabeetana qonaya walaalkay baa ii imanaya, adrees baan u baahanahay, dabeetana waa lagu qorayaa. qofkaas guriga iskale magacaaga oo saddexan buu kusoo qorayaa, warqadda una soo shaabadeynayaa. warqadaasna waad u baahan 3 warqadood markaad haysato bis noloshaadu insha Allah tacaala waa very complete ama waa complete, yani way dhammaystiran tahay weeyaan. videogan adiga aad iyo aad u ku faacaya haddii aad tahay qof IT professional ah, qof haddaad tahay medical workers caafimaadka wadankan aad iyo aad baa loogu baahan yahay. fadlan isku day haddii aad dadka ka mid tahay inaad la soo xiriirto qof Jarmalka kuu jooga. hadduu wuxuu doona ha noqdo family, haddaad ku leexataa agency raadi, siyaabo kaloo ama dilaal ama sheeko Soomaali waad raadin kartaa si hawshaada lagu dhameeyo. adiguna si sharci ah ayaad wadankaaga intaad kasoo duusho aad Jarmalka imanaysaa adigoo shaarkaagu nadiif ku yahay maasha Allah. run ahaantii videogan waxaa usoo duubay oo hilgeliyey waxaa jira arday aad u badan oo wadankii joogta, IT-ga si fiican u bartay, caafimaadka si fiican u bartay, meelo yar ka shaqeeyey, laakiin noloshu aad ugu adag tahay oon ku filnayn. qofku wuxuu soo bartay iyo wuxuu qaato run ahaantii marka laysku eego aad iyo aad bay yani ku damqaysaa, maxaa yeelay wax u dhigma maaha. sidaas oo kale marka wadamada qurbaha aad baa looga baahan yahay xirfadaas. qofka hadduu leeyahay IT, qofka hadduu u yahay web designer, aad baa Jarmalka looga baahan yahay. qof kastoo IT-ga lagaagama rabo hal eray oo Jarmal ah. way fiicanta Jarmal inaad barato, laakiin qasab maaha sida xirfadaha kale qasab u tahay. fadlan haddii aad tahay qof xiiseynaya imaanshaha wadankan, arrimahaas aday ku qusayaan. videogan gaarsiin qof kastoo walaalkaayo oo Soomaaliya jooga ama Afrika jooga oo walaalkiina Soomaaliyeed oo insha Allah kasoo bixi kara shuruudahan. aad baan walaal idiin salaamay insha Allah tacaala. haddii aad igu cusub tahay mar labaad subscribe-ka iga ilaaba walaalka Guuled
page-kan waxaan kaga hadlaa ama channel-kan waxyaalaha social-ka u badan arrimaha journal-ka arrimaha social-ka runtii channel-kan wuxuu u baahan yahay views badan buu u baahan yahay insha Allah waynu gaaraynaa aad